markana waa Rawaan iyo Cabdilaahi oo isku guursanaya ama uu bilaabanayo xiriirkoodii ama uu bilaabanayo habkii ay isku guursan lahaayeen iyagoo xalqadii hore ku soo sheegnay inay noqdeen dad isjeclaaday oo runtii isla gartay inay safarka nolosha wada galaan. Cabdilaahi waxa uu go'aansaday in Rawaan uu doono ama se uu diyaar garoobo sidii uu gabadhaas ku dooni lahaa ee uu guursan lahaa. Cabdilaahi waxa uu ka fikiray maalmo dhan uu ka fikirayay sidee ayaad waalidka ugu sheegtaa, xageed hadalka ka bilowdaa, maxaad ku oranaysaa, sideed wax ugu sheegaysaa. waayo Cabdilaahi dhibaato ayaa haysatay. culture-ka qoyskiisu waxa uu ahaa mid u diidaya in qoyskooda waxa xaaraan ka ahaa ama guriga ceeb ka ahaa in ninku uu qirto ama adoo nin ah inaad jacayl qiratid, in jacayl lagu arko, inaad qof jeclaatid. sidoo kale dhaqan ka ahayd gurigooda in ninku uusan jeclaan karinin ilaa islaan uu qabo ama xaas uu qabo mooyee. sidoo kalena waxa ahayd wax aanan caqliga geli karinin ama iyaga dhaqankooda aan ku jirin in la yidhaahdo jacayl qof baan jecelahay ama gabar baan jecelahay isagoo weli aan la isguursanin. haddaba caqabadahaasi ayaa Cabdilaahi ahaa kuwo hortaagan, weliba maalmo ayaa kasoo wareegay. maalmahaasoo Cabdilaahi uu dareemayay inay si degdeg ah usoo dhaafayaan maadaama uu ahaa qof ka fikirayay Rawaan iyo sidii uu ku dooni lahaa. Cabdilaahi muusan awoodin in aabihii uu arintaasi la wadaago, in uu la wadaago hooyadii sidoo kale, waayo hooyadiina waxa uu ka baqayay in ay aabihiis ay arinta gaarsiiso. sidaasaa ku kaliftay in aabihii iyo hooyadii midna uu sheegin. cilaaqadaasi ama xiriirkaasi ama xiriirka jacayli waxa uu ku hungoobi gaaray meeshaasi isagoo aabihii iyo hooyadii ka cabsaday sidii uu wax ugu gudbin lahaa. sidoo kalena caqabad ay ku noqotay culture-kii uu markaasi waalidkii uu kala kulmay ama dadkii uu markaasi la noolaa uu kala kulmay. Cabdilaahi waxa uu aad ugu wareeray arintaas, waxa uu waayay wax xal ah oo uu arintaasi u gaaro. laakiin xalkii waxa uu ka yimiday Rawaan markasta waxa ugu jira maskaxdeeda qaybta dambe, waxa markasta ugu jira xal aan caqliga geli karin. waxay aad khibrad badan ugu leedahay sida wax loo xaliyo. waxaad moodaa IQ-geedu inuu qayr caadi yahay. waxay ka fikirtay markaasi in ay Cabdilaahi fikrad aan waalidka ugu gudbin karo ayaa jirta ayay tiri oo ka baxsan fikradan aad adigu sida directiga ah aad ugu sheegayso waalidka. waxay tiri markaasi waxaa jira nin walaalkay ah oo aroos gelaya oo magaciisa la yiraahdo Tawfiiq oo bilka bacdi aroos gelaya. haddaba waxaan sameynaynaa ayay tiri adiga iyo waalidkaaba halkaas ayaan idinku marti qaadaya. aniga ayaana baran doona hooyada markii arooskaas ay timaado, maadaama dadku isa salaamayaan la isoo hambalyeeyo, markaasi ayaan isbaranaynaa ehelka iyo dadka markii ay soo dhex gasho, maadaama iyadana aan marti qaadnay oo ayna ixtiraamayso. halkaas ayaan fursad uga faa'iideysan doonaa. dabeetana halka waxay ka fahmi doontaa in labadeena uu jiro markaasi xiriir inaga dhexeeya iyo sidoo kale inaan rabno inaan nolol iyo mustaqbal wadaagno. hooyadana sidaasi ayaan ku fahansiin doonaa. waxa uu ahaa Tawfiiq oo wiilkaasi markaasi ay Rawaan walaalaha yihiin, mid ku noolaa wadanka Imaaraadka. waalidkiina uu aad iyo aad u jeclaa, iyaduna ay aad u jeclayd. ma waxbarashada uu markaa dhameeyay oo jaamacadu ka yimidayba, ma wiilka uu markaasi ka fogaaday oo isagu wadan kale ku noolaa, markaas ayaa sabab u ahaa. laakiin haddaba si guud wiilkaasi mid ay aad u jeclaayeen oo familkii oo dhani ay kasoo qayb galeen arooskaasi ama goobtaas oo aroos ka dhacayo ayay ahayd. Cabdilaahi fikradan ayuu Rawaan ku raacay. waxa uu arkay xalka keliyeeta ee ugu fudud ee uu dhibaatadaasi ama culayska culture-ka xaafadiisa ga yimiday uu kaga hortagi karo. Cabdilaahi markaas waxa uu u arkay in kulankani iyo martiqaadkani uu mid yahay mid gogoldhig u noqonaya xiriirkooda iyo sidoo kale nolosha iyo mustaqbalka iska rabaan iyo guurka iska rabaan. Rawaan maalmo ayaa soo maray. dabeetana maalmo ka bacdi Rawaan waxa ay keentayba warqadii invitation-ka ahayd ayay keentay, waxayna u keentay markaasi Cabdilaahi si uu waalidkii u gaarsiiyo. waxa marka gaadhay warqadii ayuu soo qaaday, waalidkii ayuu soo aaday. markan Cabdilaahi iyo hooyadii ayaa iska hor imanaya markan iyagoo markaasi isla wadaagaya. Cabdilaahina uu la wadaagayo fariintii loo soo dhiibay, invitationka loo soo dhiibay, sidoo kalena waalidkii iyo sida ay fariintaasi ay Rawaan uga dhaadhicinayso, sida indirectigana ay ugu sheegayso inay wiilkan xiriir ka dhexeeyo ama ay isjecel yihiin, mustaqbal ay iska rabaan. Rawaan waxay ahayd gabar aad u caqli badan, waxayna ahayd gabar fariin indirect ah diraysa oo markaasi waalidkii u diray. waxa gaaray waqtigii ay kulmayeen Cabdilaahi iyo waalidkii ay kulmayeen si fariintaasi aanan aadka loo fahmaynin, laakiin qofka caqliga uu fahmayo ay Rawaan meeshaasi ugu gudbiso. Cabdilaahi isagoo xal u waayay sida uu fariinta ku gudbin lahaa, Rawaan ayaa fikradan keentay. laakiin waxaad moodaa fikradani inay tahay midii u hirgeli lahayd.
cabdilaahi waalidkii la kulmay ayaa wuxuu yidhi hooyo waxaa la kulmay ama la iisoo diray invitationkan ama warqadan martiqaadka ah waxaanan iisoo dirtay gabadh mucalimad ah oo jaamacadda aan wada dhigno oo aadaan u ixtiraamo walaalkeed ayaa aroos gelaya waxaanan u baahanahay ayay tidhi inaad arooska kasoo qayb gashid sidoo kale waxay sheegtay oo ay warqada ku xustay magacaaga inaad kasoo qayb gasho maadaama uu yahay ay tahay gabadhan is ixtiraamno oo ixtiraam iyo wanaag naga dhexeeyo waxay tidhi hooyada waalidka ku ah ee sidaas wanaagsan saa kuu soo tarbiyaysay waxa aan u baahanahay inay iyaduna ka mid noqoto dadka aan halkan ku martiqaadnay cabdilaahi hooyadii waa islaan daada maraysa ilaa 50 sano waa gabadha fariinta usoo diraysaa sida dadban ugu soo diraysayna waa gabadh dhalinyara intay leebas leedahay maamadaas way fahmi karaysaa fikradaas iyo meesha waxa ku jira cabdilaahi hooyadii waa qosashay cabdilaahi hooyadii waa qosashay waayo qofka fariinta nu sidaayay waa wiilkeedii yaraa waa ilmaheedii yaraa waa ilmihii soo korisay waxay dareemi karaysaa cabdilaahi marka uu hadlayo wejigiisa wax ka muuqda khajilka iyo isbedelka ka muuqda ayay dareemi karaysaa haddana si kale u dhigo waxay fahmi karaysaa luuqadda jirkiisa ayay si fudud u fahmi kartaa sidoo kale waxay fahmi karaysaa oo ay arkaysaa marka uu u sharaxaya arrinta tani erayadiisa sida bidix iyo midig ay afkiisa uga soo daadanayaan iyagoo nidaamsanayn markaa isagoo isku dayay inuu nidaamiyo sidoo kalena uu qariyo fariinta meesha ku jirta laakiin iyadu ayse fahmaysay meesha wax ka dhacaya cabdilaahi hooyadii iyada oo cabdilaahi wax eray oo kale uusan ku hadlin sharaxaadna ay weydiin ayay fahantay arrinta meesha ka socota si kastaba haatee fariintaasi waxay si dadban ku gaadhay cabdilaahi hooyadii ayay si dadban ku gaadhay rawaan fariintaasi way ka soo baxday rawaan waxay ahayd gabadh erayo cajiib ah iyo soo dhaweyn iyo fariin waxay ku jirto oo weliba ay fahmi karayso islaan ama hooyo maraysa 50 sano ay fahmi karayso fariintaasi ayay soo dirtay haddaan si kale u dhigno rawaan waxa ay aad iyo si qurux badan usoo dhigtay fariinta tani cabdilaahi hooyadiina fariintan sidii ahayd ayay ku fahantay halkaas marka xaal marayo cabdilaahi hooyadii wax yar ayay aamusanatay haddana way muusootay dabeetana kadib waxay tidhi cabdilaahi soo weynow waxaa tahay ilmahaygii yar ah ee dhabtayda ku jiifay ayaa tahay halkaasna kusoo koray waxaa tahay ilmahaygii yar ah ee farihiisii yarara ee jilada sala wejigayga ku salaaxi jiray isagoo jacaylka iyo xanaanka iyo hooyanimada iyo waalidnimada aan u hayo idareensiinayay ama isaguba markaasi dareemayay ayaa tahay laakiin hooyo maanta waxaan arkayaa inaad aniga noloshaydii iyo booskii aan kaa joogay aad ku bedelanayso qof kale oo dumar ah inaad ku bedelanayso ayaan dareemayaa ayay ku tiri intaasi marka ay hooyadii tidhi ayuu cabdilaahi weliba hadalka iyadoon dhammaynin oo laakiin tustay inay fariintani si dadban iyaduna ay u fahantay balse cabdilaahi iska dhigay nin aan fahansanayn hooyadii waxay ka hadlayso isaga laftiisu waxa uu ahaa nin fahansan ciyaarta iyo sida uu wax u socdo iyo sida dadban wax la isugu sheegayo cabdilaahi markiiba wuxuu iska soo jiray hadalkii intuu hooyadii ka dhex galay ayaa wuxuu dhahay hooyo gabadhaasi fariinta ay noo soo dirtay iyo codsiga ay noo soo dirtay ma yeelaynaa arrintaasi ma aqbalaynaa maxaan ku dhahaa berri haddii ay weydiiso markaan tago jaamacadda haddii ay dhahdo ma laga aqbalay arrintii oo waalidka ma ka aqbalin cabdilaahi hooyadii waxay ahayd islaan ama waalid ama hooyo maraysa 50 sano iyada lafteeda xikmad iyo waayo aragnimo badan ayaa ka buuxday dabeetana iyadoo wiilkeeda inay akhrido rabitaankiisa iyo wax badan iyadoo inay kasoo saarata rabta ayaa waxay ku tidhi bal adiga ayaan kuu da-ay hooyo maxaa kula quman maxay dareemi kartaa gabadhaasi sidoo kale maxay ku farxaysaa ayaad is leedahay maka cudur daarana mise meesha waan tagnaa cabdilaahi ayaa isku dayay in wax qarqariyo wuxuu isku dayay hadalkiisii inuunan dareensiinin in meesha iyaga uu xidhiir markaasi uu ka dhexeeyo laakiin ugu dambeyn cabdilaahi meel uu maro iyaray wax ku cabiro ayuu waayay inuu muujiyo arrintaas mooyeen waxauna yidhi ra'yigayga aniga waxaan u arkaa in ay gabadhaasi isu kan dhibtay inay gabadhaasi si gaar ah ay noo marti qaaday sidaa darteed ma aha inaan qalbigeeda jebino haddii aan awoodaynaba inaan tagno waxay la quman inaan tagno cabdilaahi markaasi hooyadii ayaa muusootay waxayna ku jawaabtay waxaynan aragtay ama ay heshay jawaabtii ay isaga ka filaysay laakiin ay islahaydun bal isagu ha ku hadlo waayo waxay aragtay in ay meesha icjaab iyo jacayl iyo xidhiidh inuu jiro ayay dareentay waxaynan ogaatay in albaabkii muslimiinta guriga muslimiinta laga soo gelayay in ay kasoo gelayaan ama dabcan ay iyagu waalidkooda u muujinayaan inay yihiin dad si xalaal ah iyo mustaqbal iyo reer iska raba inay yihiin fariintaas ayay kala soo dhexbaxday gabadhaas inay rabto in waalidkii ay dareensiiso inay arrintaasi jirto cabdilaahi ayaa markaasi inta uu muusooday uu arrintaas ku farxay markay hooyadii sidaa ku tidhi ayuu
ayuu arintaas ku farxay inay aqbashay. dabeetana Cabdilaahi waxa uu aroorta u baxay jaamacadii isagoo markaasi farxad weyn sida ayuu maalinkaasi jaamacada u baxay. waxayna kulmeen markaasi jaamacada gudaheedii ay ku kulmeen Rawaan oo iyaduna farximo badan iyaduna ka sugaysay aqbalitaanka kulankaas oo ujeedadiisu aysan ahayn kasoo qaybgalka walaalkeed arooskiisa balse ay ahayd fariin kale mid ay ku gudbinayso aqbalitaanka bas aan sugaynin laakiin ay sugaysay fariintii la fahmay iyo sidoo kale inay maamadaasi meesha iman doonto si ay u noqoto mid ka ciyaaraysa door weyn dhanka gudbitaanka shucuurtooda iyo ka sugaysay inay xiriirka iyo mustaqbalka iska rabaan inay waalidkaasi ay u fiso oo ay tusto meesha uu xumarayo. Cabdilaahi waxay kulmeen markaasi jaamacada ay aroorta ku kulmeen Rawaan waxayna sarkeen si ay isku wareystaan xaaladda meesha ay marayso. kadib Cabdilaahi ayaa bilaabay iyadoo Rawaan weydiisay bal xalkayga oran xagee wax maraya. Cabdilaahi ayaa hadalka bilaabay waxa uu yiri muuqaalka dambe ayaan kugula wadaagi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo qisada ama riwaayada ama sheeko fanadkan halka ka sii wadayna.